waa dhacdo maalinle ah oo si joogto ah shacabka gobolka Sool u haysata gaar ahaan dadka markaasi ah birmageydada iyo haweenka ah halkan waa maanta waana magaalada laascaanood askari kamid ah maleeshiyaadka laga keenay Hargeysa Gabiley iyo Burco ayaa bartamaha magaalada laascaanood wuxuu ku dhex garaacayaa mid kamid ah haweenka magaalada laascaanood goobta waxa ku wada sugan haween fara badan goobtu waa goob caawimo lagu qaybinayo sida muuqata ninkan askariga ah wuxuu laad madaxa kala dhacayaa mid kamid ah haweenka magaalada laascaanood inta kadib wuxuu raacanayaa xabad itaalka haweenku ma hayo sida caadada ah dhagaxaan iyo ciid bay u adeegsanayaan ragga haweenka qabay ama dhalayna waxa ay ku sugan yihiin suuqa 13 sano ugu dambeeyay waa wax si toos ah ama maalinle ah u haysta shacabkan balse inta kaamiradu qabanayso ayaa iska yar ay dulqaateen afkoodii dabooleen dana hagagaarte ku duduubi haysoraad haddii ay dulqaateen afkoodii dabooleen dana hagagaarte ku duduubi haysoraad dood baan qabaaye shalay kuwii la doorto